بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. casharadii faraha badnaa ayaan ku guda jirnaa waa Somali Star Online Training. hadba step by step baan ula sii socon doonaa waana very important taasi. casharo fara badan oo kala duwan baan horay usoo wada faa'iidaysanay ardayda kala duwan meel walba adduunka aad ka joogtaan hadba tallaabaan horay usii qaadi doonaa. casharadeenii halkaasay sii marayaan waana very important taasi hadba tallaabo inaan horay usii qaadano. waxaan qaadanay cashirkii koowaad oo ahaa diraandirintii inaan soo qaadano. cashirkii labaad waxaan fiirinaynaa performance-ga kambanigaga latest waa inaad ka dhigataan kambaniyadiina, haddii kale ma idin shaqayn doono backupka. mar walbana waa idinku soo celiyaa taas, waayo backupka wuxuu ku shaqeeyaa latest inuu yahay oo keliya. home imow about-ka idinka tusinayaa enterprise 2018 kii ahaa 19 casharadiisii internetka ka fiirin doontaan. 18kina waa ka okay. edit baan dooranayaa performances. kambanigeenii waajibaadkiisa iyo suu u shaqaynayo baan halkan ku arkaynaa. halkan waxaan ku baranaynaa inuu kambanigeenii ku shaqaynayo accrual base ama cash base waxay yiraahdaan, iyadoo cashiro fara badanna ardayda ay qaadan doonaan waana muhiim jiddan taasi. hadba tallaabo inaan usii qaadno ayaan rabnaa, waana lasoo casriyey, wax badan baa iska bedelay. haddii horey ku dambeysay update aadan ahayn, accrual base iyo cash base bay u kala qaybsamaan. reports and graphicskiisa ka fiirin doontaan, waana kala socon kartaan halkaasi. okay, iyadoo aan samayn doono akoonadii iyo iyadoo aan samayn doono habka aan u gelin doono khasnada aan ugu diyaarinayno iyo habka aan ugu diyaarinayno bangiyada, iyadoo bangiyada kuwa online-ka iyo kuwa kale aan kala saari doono. haddii aan ku shaqaynayno credit card ama aan ku shaqaynayno waan kusoo daraynaa, haddii kalena online aan ku shaqaynaynin offline baan ku shaqaynaynaa oo aan u qaadano master user iyo single user baa loo kala yaqaanaa. marka haddii aan ku shaqaynayno habka waafaqsan online-ka waa gaar, haddii kale habka kale caadiga ah qof meel taagan ama qof dukaankiisa ama supermarketkiisa ama company oo wax iibiyo kale baan kusoo qaadanaynaa, ama farmashi ha noqdo daawooyin ama badeecooyin caadi ha noqotee, midkay doontaba ha noqoto. markaan dhisayo akoonada company baan imaanayaa, journalkan ka gelinayaa, double transactionkaan isticmaalayaa, make journal entry baan doortay. hadda waxaan dhigayaa qasnadii baan abuurayaa. qasnada halkaan ku abuuraya waa kan, halkaanaan ku abuurayaa qasnada uu yeelanayo kambaniga aan soo dhisnay. qasnada wax lacaga dhigi mayno, waa sida abgaran. qasnada ma yaqaano QuickBooks, waa wuxuu leeyahay account not found, akoonkan lagama helin ama kuma jiro. sida abgaray baan leeyahay income ka dhig. qasnada income baan ka dhiganaynaa, oo meesha lacagaha noogu soo dhacayaan baan ka dhigaynaa qasnada. waxaa iska save gareynaynaa, marka wax muhiim ah ma sii raaci doono, waxba ku shubi mayno, lacagna dhigi mayno. qasnada hadda soo abuuray waxaan ka fiirinaynaa charter of account-ka, iconska charterkan ka fiirin doonaa. qasnadii waa taan soo abuurnay haddeertaan, waana edit gareyn karnaa haddii aan doono. waa casharadii Somali Star Online Training oo faraha badnaa aan la soconay. waxaan kaloo abuurayaa bank, halkaanaan ka dooranayaa marka new account soo abuur baan leeyahay, banki baan dooranayaa. banki markaan doorto continue baan leeyahay. bankigeena kuwa Soomaalida waafaqsan yihiin iyo kuwa kale midun baan ka dhigaynaa. tawakal haddaan ka dhigo, tawakal bank haddaan ka dhigo waa ka save and close. hadduu balance hore jiray balancegii baan furayaa, waan ku cadaynayaa lacag hore hadday noo taala, haddaysan noo ooleena waxba nooma ooleen baan dhahaynaa. halkaas save and close iska leeyahay. bangiyada waa kuwan hadda setup garaynayno, kuwa online-ka ah, laakiin anagu ma doonayno kuwan inaan setup garayno. bangi wadankeena waafaqsan oo la shaqayn kara ayaan rabnaa. bangiyadan waxa weeye waa bangiyada caalamiga ah, marka ma rabna setup garayntiisa no baan iska leeyahay. marka tawakal banki oo Soomaaliya ku yaalo baan soo dhisay, lacagna ma dhigin. 2 milkiile baan abuuri doonaa oo aan soo gelin doonaa halkani, waa inay la socotaa oo lacag dhigistii baan bilaabaynaa. cashirkeennan weli wuu socdaa. company baan imaanayaa, make journal entry-ga double transaction double ahaan baan u gelinayaa labada qof oo company wadaagayso.
okay mid waa fahmo maxamuud bare inter baan leeyahay ma yaqaan setup equity ka dhig baan leeyahay equity bay noqonaysaa waa qofkii xuquuqda company-ga lahayd lacagna waan dhigaynaa la soco safe halkan waxaan dhigaynaa 20,000 oo dollar 000.00 marka debit iyo credit baan kala dhigayaa marka bangigii halkan qofkii baa soo gelaya bangigiina halkan buu gelayaa halkan waxaa gelayo waa bangiga muxuu ahaa Tawakal Bank halkan qofkii baan dooranayaa fa kaliya waan soo qoray waan ku dhufanayaa kaliya halkaas soo gelayaa save and close qof kalan ku darayaa oo company-ga la yeelan doono make journal entry waxaan soo dooranayaa company waxaan imaanayaa make journal entry markaas waxaan leeyahay qofkii kale Tawakal baan dooranayaa marka hore markaan doorto bangiga waxaan ku darayaa lacag 20,000 oo kala ah si isu waafaqdo xisaabta waa furayaa credit baan ka dhigayaa halkan ku qorayaa marka waxaan qorayaa Zakariye maxamuud bare waa laba walaalo ah oo company wadaaga qof walbana 20,000 buu ku leeyahay safe and close setup ma yaqaan Zakariye marka setup garay buu leeyahay equity baan u dooranayaa equity baan ka dhigayaa safe and daya halkan safe and close marka bangigeeni laba lacagood baa la soo dhigtay laba qof oo milkiilayaal ah Zakariye 20,000 baa u taal faamana 20,000 baa u taal reportkeeni dib u eegis baan ku sameynaynaa oo balance sheet-ka weyn markaan dhisno maraan ka fiirinayaa balance sheet-kii weynaa standardka ah waxaa taal lacag 40,000 ay kala leeyihiin Fahmi Maxamuud Bare iyo Zakariye Maxamuud Bare iyadoo cashirka xigana aan bilaabi doono sida shaqada u bilaabanayso waana muhiim jiddan taasi cashiro fara badan baa nagu soo socda cookbooks waxaan ku qaadanaynaa 18.0 iyo 19.0 wanaga heli kartaa waxaa ka iibsanaysaan Somali Star Online Training cookbooks latest ayaa ku hayo maca serial numberadooda waana very important taasi waa kan 2018 soo baxay 2019 soo baxayna waa ku haynaa sidaa darteed fi amaanullah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cashiradan la wada soconno waa casharadii tutorialka loogu talagalay ardayda kala duwani meel walba ay joogaan waana tilaabo loo sii qaadayaa software-ka ardayda gadatayna toos ayaa loogu dirayaa email-kooda waana loo dirayaa serial number-ka aad ka geli kartaan waana muhiim jiddan taasi iyadoo cashiro fara badanna ardayda ay kasoo wada faa'iidaysteen halkaas la sii marayaa sidaa darteed fi amaanullah wassalaamu